Assalaamu calaykum. Waxaan wanaagsan dhammaan saaxiibada ku xiran barahayga xiriirka bulshada meel walba oo adduunka ka joogtaan kuna soo dhawaada muuqaal cusub. Waxaan muuqaalkan kaga hadli doonaa tirada luqadaha uu ku hadla Kylian Mbappe, shakhsiyaadka ka caawiyay iyo halka uu ku bartay luqadahan tirada badan ee uu ku hadlo weeraryahanka PSG ee Kylian Mbappe, luqadaha uu hadda baranayo iyo kuwa uu sida caadiga ugu hadli karo. Balse inta aan guda gelin muuqaalkan ha hilmaaminah inaad subscribe inoo saartaan barteena YouTube-ka sidoo kalena aad furataan jaraska ama gambaleelka si ay degdeg idinkugu soo gaaraan warbixinada aynu soo gudbino. Waxaan sidoo kale ka codsanaynaa saaxiibada ku xiran boggeena Facebook-ga inay like inoo saaraan muuqaalkan. Mahadsanidin. Weeraryahanka kooxda Paris Saint-Germain iyo xulka qaranka Faransiiska ee Kylian Mbappe waa mid kamid ah xidigaha ugu fiican dunida waqtigan. Sidoo kalena waxa uu kamid yahay da'yarta loogu doonista badan yahay suuqa kala iibsiga, iyadoo aan meesha laga saari karin inuu sidoo kale ka mid yahay xidigaha farakutiriska ah ee dhowrka luqadood sida fiican ugu hadli kara. Haddaba imse luqadood ayuu ku hadli karaa Kylian Mbappe? Sida uu warinayo wargeyska Le Parisien ee ka soo baxa waddanka Faransiiska, Mbappe waxa uu si fiican u bartay luqadaha Ingiriiska iyo Isbaanishka markii uu dhiganayay dugsiga dhexe. Waxa uu sii horumariyay ku hadalka labadan luqadood ee Ingiriiska iyo Isbaanishka wixii ka dambeeyay iskuulkiisii, isagoo ugu hadli kara si aan kala go' lahayn. Waxa uu bilaabay inuu luqado kala barto Mbappe markii uu joogay kooxda AS Monaco ee isla waddanka Faransiiska. Maanta waxa uu Mbappe si nadiif ah ugu hadli karaa luqadaha Faransiiska, Ingiriiska iyo Isbaanishka. Balse intii uu joogay kooxda Paris Saint-Germain waxa uu ku daray luqad afraad oo waxa uu bartay luqadda Talyaaniga, iyadoo uu taa ka caawiyay saaxiibkiisa ay isku kooxda yihiin ee Marco Verratti. Abaalmarintii Globe Awards ee dhawaan lagu qabtay magaalada Dubai ee isu tagga Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu Mbappe waraysi luqadda Talyaaniga ah ku baxayay siiyay TV-ga la yiraahdo Sky Sport Italia. Wargeyska L'Equipe ee isna Faransiiska ka soo baxa ayaa sheegay in Mbappe uu doonayo in uu 6 luqadood oo nadiif ah ku hadlo mustaqbalka dhow. Marka laga soo tago luqadaha Faransiiska, Ingiriiska, Isbaanishka iyo Talyaaniga, Mbappe waxa uu doonayaa in uu luqadihiisa ku daro 2 luqadood oo kale. Xidigan da'da yar waxa uu haatan bartaa luqadda Boortaqiiska oo uu ka saaciday barashadeeda weeraryahanka reer Brazil ee Neymar Jr. halka uu sidoo kale doonayo inuu barto luqadda Carabiga oo kamid ah luqadaha ugu caansan dunida. Waraysi uu dhawaan siiyay Thierry Henry ayuu Mbappe ku sharaxay sababta uu u baranayo luqadahan, waxaana uu yiri: sababtoo ah waxaan doonayaa inaan noqdo xidig weyn. Waxaan sidoo kale doonayaa inaan noqdo shakhsi ka dhex muuqda bulshada. Maanta ma noqon kartid xidig heer caalami ah haddii aad kaliya ku hadlayso Faransiis. Taasi caqli gal ma aha. Waa inaad la qabsan karto dhaqamo iyo luqado kala duwan. Xidigan 23 sano jirka ah ayaa hadalkiisa intaa ku daray: marka aad meel tagto waa inaad taqaano luqadda halkaasi looga hadlo. Waxaa jira xidiga dhowr ah oo kubadda cagta ku xamaasha kuwaasoo ku hadla ilaa dhowr luqadood, waxaana ka mid ah weeraryahanka kooxda Chelsea iyo xulka qaranka Belgium ee Romelu Lukaku oo ku hadli kara ilaa 7 luqadood iyo wax ka badan oo kala duwan. Intaasi waxaan ku soo koobaynaa warbixintii aynu kaga hadlaynay luqadaha uu ku hadli karo xidiga PSG ee Kylian Mbappe, shakhsiyaadka ka caawiya barashada luqadaha, kuwa uu haatan baranayo iyo inta uu sida caadiga ugu hadli karo. Intaan barnaamij kale dib ugu kulmi doono waa anigoo ah Harun Yusuf Qasaaro idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.